madoobe maxay ahaato dalkii cabdiraxmaan cabdishakuur guddoomiyaha xisbiga shariif xasan akhyaarta kale cabdikariim xildhibaanada sharafta leh runtii sharafay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan qaaliga ah waana ka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran oo runtii walaalahan reer Jubbaland ay noo sameeyeen wax ku cusub ma aha wax u ah dhaqan markii ugu horeysay ma aha insha Allah markii ugu dambeysana ma noqon doonto waa idinku bogaadinaynaa horumarka aad sameyseen iyo dadaalkiina waa idinku hambaleynaynaa waa ka cudur daaranaynaa dawladnimadii aad jecleedeen oo aad dhinaciina ka dhisayseen aad u bannaan baxdeen inuu ku dulmiyo in mataqaanaa waxaa laga shaqeynayay in dawladnimada cadaaladdeedu cid walba ay gaarto maanta waxaa nasiib darro ah cadaalad darradeedu meel walba inay gaarto laga soo bilaabo magaalada muqdisho ilaa meesha ugu dambaysa laakiin waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed dad xura oo fahamsan waxa ka maqan iyo waxay rabaan inay yihiin fursad weyn ay noo tahay maanta gogoshaana loo fidiyey sida walaalkay madaxweyne Axmed Madoobe oo ka dhawaajiyay cala misaar kaliya ma aha iyo Cabdiraxmaanba waa wada tashi maxaa yeelay walwal badan aan ka qabnaa sida wax u socdaan saraaxa aniga waxaa la igu tiri jiray dadka aad mataqaanaa dawladda ugu dhow oo mar walba dadka gacmaha qabto yiraahdo war hala daayo maantana hadda xaaladda waa la socotiin 30 sano kadib in loo celiyo nidaamka litaris oo aan ogoleyn sharci oo aan ogoleyn Soomaalinimo oo aan cid oo xurmeynaya aan la arkin runtii waa nasiib darro laakiin waxaa ilaahay mahadiisa inaan ku wada baraarugsannahay u wada joogno taladeeda wada leenahay Soomaaliya meeshay joogtana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato waa jecelnahay dawladnimada sharciga inay ixtiraamnaan rabnaa waxaan rabnaa laakiin dawladduna inay ixtiraamto waxa yaroo noo qoran muhiim ay noo yihiin ma dhammaystiran waa run laakiin waxaan rabnaa isaga in lagu dhaqmo si loo gaaro mid dhammaystiran oo aan ka wada qayb qaadan marka ma rabno runtii in dawladnimada ay u dinto sharciga lagu dhaqmi waayo dadka Soomaaliyeed waxay ku wada joogeen sharci ku wada joogeen waxay ku wada joogeen waxay u wada dhasheen oo Soomaalinimo ah ahalnimo ah laakiin waxaan rabnaa in lagu daro sharci waqti badan lagu soo bixiyay dawladda koobaad lagu doortay ma aha dawladdan waa dawladda labaad lagu doortay marka walaalkay Xasan Sheekh oo asagana maanta runtii iga soo horreeyay oo mahad celinaa runtii doorka fiican oo ka qaatay dastuurkan hadda yaala qofka koowaad lagu doortay asagoo ah waxaan ogolaaday inuu qofka ku guuleystay waa ka tagay sidoo kale uu sameeyay madaxweyne Farmaajo ku wareejiyay marka dastuurkii hore loogu dhaqmay maanta in la iska laalo oo la yiraahdo ma shaqeynayo annaga waxaan aragnaa arrin khatar waxaan u aragnaa arrin aan la aqbali karin arrin aan indhaha laga qarsan karin qarannimadii dumaysana ma aamusi karo maxaa yeelay eed waan qabanaysaa mas'uuliyadda qabanaysa dad waaweyn aan meesha joogay marka qof walba Soomaali waxaan jeclaan lahaa inuu qalbigiisa ku qabto annaga waxa aan rabno inuu sharcigu sareeyo wax kale oo ma aha 4 sano aan ku haysan hadduu mar kale guuleystaan aan ku haysan laakiin waxaan rabnaa sharcigu inuu sareeyo doorasho xula oo xalaala oo Soomaali wada joogto oo xasilooni keeni karta inay timaado taasna waxay ku imaan kartaa in la tashado oo habka doorashada loo galaayo hab qola gaar ah ay samaysto oo sanad waxaan ka shaqeynaa waa xisbiyo waxaan ka shaqeynaa waxa waaye dalku inuu u wareego si dimuqraadi ah marka internationalkan waxaan leenahay waqti badan ku soo bixiseen hanti badan ku soo baxday dawladnimadu adinkoo iska aamusan inay dushiina ku dinto wax la aqbali kara ma inaad qaybtiina qaadatiin oo aad ka soo baxdeen meelaha ku jirtiin anaga waxaan aaminsanahay inay maarmaanta anaga waxaan isleenahay shacabka beenta oo loo sacbinayo dawladda wuxuu xoojinayaa hareer marka iyo garab marka iyo burburinta sharciga taasna Soomaaliya ugu jirto marka waxaan rajaynayaa insha Allah
dadka waxgaradka halkan jooga inay ka qayb qaataan wax taariikhi ah qof la nacab yahay ma jirto qolo la nacab yahay ma jirto annaga waxaan jecel lahaa sharciga in lagu dhaco marka hadallada beenta ummadda lagu wareeriyay waxaan leenahay waxba sooma kordhinayaan waxa loo baahan yahay waa dawladnimo taasaan isugu nimiday taasaa madaxweyne farmaajo asagoo 40 maalmood in ka yar joogo madaxweyne ku noqdo ku ixtiraamay ولنا واكو احترامنا هذا واكو احترامنا لكن وحا مهمة شرعا إلا إلالي شرعا إلا إلالي ودولد إلالي سمح هذه على ما سنتم